hooyana way ku dhashay inaad macnaha u fiirisaday ahayd sida walaasha oo kale amba familkaaga amba habar yar amba eedada amba xawhaay inaad ka fiirisid oo kale aadan gabadha Soomaaliyeed yani kalsoonida kolofka video kulaada shay qabtay waa fahantamaa marka runtii nacas ina noqoto arka assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh man asxaabta soo dhawaada manka official runtii waxaan baliyana saaxiibkay marna walaalkay ah Mr. ZK oo yani 100 milyan gaaray runtii waxaan leeyahay ZK hambalyo faantimaho yani qof Soomaaliga lama hagrado haduu horumar sameeyo Soomaalida qaar laakiin waa isxaasidaan waxyaalo fara badan isku sameeyaan baa jiro laakiin isma xaasido oo yani qofka walaalka haduu aragtid inuu horumar u soconayo yani waxa waaye kugu luqad yahay kugu waxa waaye macnaha kugu dhig yahay waa loo hambaliyaya marka ZK waxaan leeyahay saaxiib hambalyo mid kale oo arinta muhiimka ah raba inaan asna ka hadlo waxa waaye arinta ku saabsan gabadha la yiraahdo Cayooni Qurux oo runtii gabadha adiga TikTok-ka caan ku tahay saan ognahay waxa la hayaa inta badan waxaan ku arkaa Instagram iyo waxaan ku arkaa Facebook sawiraanteeda Cayooni kuma kasayna walaal laakiin si macnaha bulshada dadka caanka oo kamid tahay waxaan ku dhiilahayn iska sabar oo dul qaado يعني واحد ضي دعين بوي دعين سما واحد ضي دعين ما بدعين وحب بلانتها مركا إني دعين سيدا هذا يعني ميلا بدنا ولا قفيري واي دعين ما دي كرنو because قف كسمية يمكن لقوا سمية لبعض أنا معناها مكان حقهين لكن أهمية ده ماشي تعالى وحيت هاي عيون قروح وحاد عضي إن فيديو رنتي يعني أوحن fiicneen la wareejinayo maalmaha dambe oo idinka laftirkiina aad wada aragteen fiidiyogaas oo runtii yani waxaan la yaabay marka dad badan oo raba inay ka hadlaan fiidiyoogi oo hadana ayagii si masana si share gareynaya arkaysa oo fiidiyoogi si socodsiinaya lama rabo ceebta waxa la dhahay qofka ceebtiisa waxa fiican in loo asturo midaasana wanaagsan diinteena macna muqaddaska ay qabtaa ma ahan qofka ina ceebtiisa la sii shar gareeyo yani qof kale warkeenu ogeen in la sii tuso waa laga fiican yahay wiilka sida u dhaqmayna waxaan leeyahay runtii waxaad sameysay kolba walaal way ku laltay wallahi abaayana way kula joogtaa dabcan hooyana way ku dhashay inaad macnaha u fiirisaday ahayd sida walaasha oo kale amba familkaaga amba habar yar amba eedada amba xawhaay inaad ka fiirisid oo kale aadan gabadha Soomaaliyeed yani kalsoonida kolofka video kulaada shay qabtay waa fahantamaa marka runtii nacas ina noqoto arka oo doqon aan noqotay oo runtii aad waxa ka sameysay wax aan dumarka laga sameeynin taas runtii toogashada noocaas oo kale inta gabdhaha in lagu toogtaana ama lagu bahdilaana waxay waxaad waxun waliba gabar caana waay ma ahan gabar caanooley ma aha ya macnaha Halima caanooley ma aha waa Cayooni Qurux oo yani caan ah oo la kasaayo oo runtii la wada fahansan yahay waxa sidaas ah u sameeysaas marka waxa aan dhici doonto adigana inaad sabaqa soo gali doonto runtii waxa la ramtaqana dilaayo dilba ku dambeeyay marka waxa waaye nin walbo maalin baa waxaad sameysay maalin baad sabaqa ku soo dhici doontaa dabcan maalin adigana macnaha fadeexa waxa u malinaa midaas ka xun inay ka soo faka doonto maxaa yeelay dadka ceebahooda lama galgalo bilis qalad weesaas waa runtii yani raganimadaada dana inaad taas ismaashid wallahi anaga raggeena dhan waxa u soo jiiday waxa la dhahay runtii ma dhigi karo ma sheegi karo because maxaa yeelay ceeb macnaha waaye Soomaa وعيب ونسو جيدي ما دام يعني عيبنا wax lagu faano sheega ma aha yani rag ahaantiina nacaybaysanay oo fahanto annaga yana wasaqaysay ma garata maanta waxaan dhiilaa wallahi okay aan dambaniyo ya gabadhaas ma aragtay hal kamid oo ku furan ku sheega marka oo run xaqiiqadan wallahi hal kamid oo ku furan ya adiga hal kamid oo ku furan waxay tahay ma taqaana inaad gabadhaas ya
araali galeysanayo gabadha saari garay mis maqlayna mis qabsan karnaa ma li jiri war mis ashi karnaa mis celi karnaa hadii ay dhacdo in aysan celi karno iska qabsan karno bilis waxaan ka codsana gabadha sanad waa qaldama tiraadid waxaasna aad ka tanasushid waxa hadda aad ku sameeysan aad ka saartid meesha galiso waad qanaan in faanta warniyo ya maxamed doyo inii waa iska saynaa macna ma faanta oo hadda dad iska saynin ma nihin ani adiga saqaasan ka rabaa inaan kula hadlo ma faanta ma in runtii inkastoo aniga hadda aan rabin yani marka xiriirnay oo kula hadlay waxyaabii ani adiga dhaxmar inaan bulshada aan u gudbin ma doonin يعني عدوة كقبل كريكا ما قبل سائق ولا هذا الشيء مناسب معين عدينا في الكذا ودكتاي نيو ديو وحان كله لها نيو وحان اسكدا مفهمت رنتي وقوانا أنا صاحب إن أنا هيو أكتا وفهمت مو اسكسينا ومدة سنقين نكاس اسكسينا مركنيو أنا جا ما وحاسنا سميني صرت إلى ما الحين وفهمت ما هو لكن وحاسو كلا وحلقة في عينها وفهمت waxaasoo kalena wax aan kaaga digayo wallahi wiil kasto dhaqanka sameey rabana waliba uu sii digaani waxaan leeyahay saasa ku sameeynin sababtoo ah gabadha ku xan kaaga digayo wax kale ma gabadha ku dhalatay hooyada gabadhi ahaan jirtay waa fahantimaho ma ahan ina qofka haduu ku jeclaaday ina saa doonto aad ka yeeli kartid ma aha ya qaladaadka aad galisidna kumanaan malaayiin oo rag ah ay maanta macnaha waxa way saameynaysaa ma fahantaa يعني لمانيال داعي سكوا حريري بدن كده حينا قلا ما أنت كلا يعني كلا جنبيس مراي كلا جنبيس والله ولا كلا جنبينه يا والله كل فيديو هاي وسوق قبنا كده عيسو يا حوالي هو سكده نيو أنا يدق عن باريس أنا قلت يا حسك مدل قادنين قبل ولا شاء حوالي أساسنا إن سمي سماها أصحابته لما أنتي مروا باجوكتين يعني مقال كان عن رأس الشرقة هيو وحوالي هذا نوع عصبته هاي وحوالي جنبلا الكاغا تاب صفرو مسا مرمر بمعناها نور كوميتد runtii waxyaalo fara badan ayaan si sameyn doonaa oo yaani daal fara badan ayaan runtii anaga laftirkeena wax mar walba waxa taagan inaan ka hadalno waxa ay soo fadhiisiin wallahi wax kale ma aha yaani dhan waxa way walaalkay hambalidiisa oo yaani CK oo 100 milyan iska gaaray iyo dhanka kale inta nijabka iyo xanuunka badan leh oo runtii gabadhan abaaya lagu sameeyay ayuu qurux waxa way marka asxaabta حواليان وحول بعوادنكينا حوهاي لاج هلا صاروا محل منطقنا سمسقراب حقينا يا رقرقتك سيا وحول بقى أنا ما سنتين أنت صار كسوق قبينينا